wasaaradda caafimaadka horumarinta gobolkan awdal iyo national malaria muxuu ahaa oo ka timid wasaaradda muxuu ahaa santarka ayaa waayaanba ka wada shaqaynayay qaybta malaariyada taas oo imika way cishooyinkan dambe aan aad iyo aad ma roobkii daay iyo qashinkii meelihii biyo fadhiisigii iyo wixii oo dhan isla markaa campaign baan qaadnay campaignkii baanan ku wadnaa campaignkaasna waxa weeyaan buufintii oo aan laga buufiyey dad gaaraya ama guryo gaaraya 2500 oo qoys waxa kale oo u qaybinay markanacadii 12500 oo qoys waxaan iyagana u qaybinay muxuu ahaayay 12500 oo qof markanaco ayaan qaybinay iyagana qaybaha aan ka qaybinayna waxa kamid ahayd muxuu ahaa qoorgaab iyo shaal jawhar ilaa jaamacadda Amuud ilaa muxuu ahaayay halka kaydka biyaha qaybahaasaan ka qaybinay welina way socotaa tiimam kale oo iyaguna muxuu ahaayay caafimaadka oo ka shaqeynaya jira kulli shaqadaasi ayaan waayaanba ka shaqeynay wayna socotaa si fiican oo wadnaa idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin indhihiinaad ku arkasaan oo ku soo marteen imika hawlahaasina waa waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ee horumarinta gobolkan awdal ay wado iyada oo wasiirka caafimaadka iyo DG-ga iyo wasiirka xigeenka iyagaasmeeshba ay shaqada nala wadaan taasi baanan ku jiray waagii ilaa waayahanba maantana waxaan diray team muxuu ahaayay BAC-gi oo aan u diray degmooyinka si uu soo qaybiyo dawooyinkii iyo qaabkii baaritaankii lagu baariyay kaneecada lamaantood xanaanada gobolkan awdal iyo salal taasoo imika ku maqan yahay qaybinta dawooyinka malaariyadu waa free meel kasta qofna lagama qaadiyo bilaash baa lagu baarayaa bilaash baana muxuu ahaay dawada lagu siinaya wax kasta oo laga helo waxaan lagu tageynaa guryahoogii baan xitaa ugu wada tagnay qof kasta house to house kii xumad lana waan ka qaadinay insha Allah kariim